sidii loo xallin karana ilaahay waa sheegay. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wastaciinuu bisabri wasalaat wa innahaa la kabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. waxaad kaalmaysantaa sabarkii salaada markii dhib idin soo gaaro ama imtixaan aad aragtaan waxba cabanina intaad salaad gashaan ilaahay baraya midda kalena sabar la kaashada. wa innahaa la kabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. dadka khaashiciinta mooye dadka kale way ku culus tahay. inaan ilaahay hor istaagno oon rabbarino waxay nagala culusta in la yidhahdo buuro qaada. laakiin inaan makhluuq u dacwoono oo dhibka dhan maanta aan sheegano oo wax walba maantanan ummadii u calacaleenahay waa wax aad u fudud hadda xilli walba iska dhici karo ama qof walba lagu arkay. soo saama ilaahay qofkii wax walba rabo ilaahay wuxuu markii saqda xabiinimo la gaaro wuxuu leeyahay hal min mustaghfir ma wax loo dami dhaafaa baa jiro hal min dii xaaja ma qof dan loo gudaa jiro. waxaan hadda haddii subaxii la kala weydiiyey aad kala gaari laadahay oodba fursad u helaada hal saac ama 3 saac hadli kartidba calaacalba xilliga habeenkii uu ku leeyahay rabbi maxaad u baahan tahay inaan istaagno rabbi weydiisana maxaa diiday. marka taas waxay qofkii ku cuslaatay salaadii sabarka waxay ka mid noqonaa calaamadaha munaafiqiinta. kuwee ictiqaadsan ilaahay wuxuu yidhi aladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim wa annahum ilayhi raajicuun. kuwa sabarkii salaada u fududahay oo dhibkii ku soo gaarana ku sabrayo salaadana tukanayo waa kuwa ictiqaadsan in ilaahay loo celin doono. kuwaas weeyaan kuwa guuleystay. ilaahay markuu ka hadlay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa dadka guuleystay annaga qofkii guul gaar waxaan u naqaanaa qofkii PhD qaatay iyo meelaha sare adduunka ka gaara ama kambani weyn madax ka noqday soo saama laakiin aakhirada waxba u jirin kaas guul maaha. ilaahay wuxuu yidhi qad aflaxa almu'minuun mu'miniintii waa liibaaneen oo waa guuleysteen. kuwee waa yaa rabbi aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. kuwa salaadooda ku khushuucsan oo mar alla markaa salaada gasho qofku wuxuu dareemayaa raaxo iyo raxmad iyo wanaag iyo farxad buu dareemaya. ilaahay buu hortaagan yahay khaaliqii koonkan dhan umay buu hortaagan yahay. qofka noocaasoo kale farxad buu dareemaya. dhibaato kastoo soo gaarta markuu rabo ilaahay hor istaagaba waa hilmaamaya. marka sabarkaas iyo salaadaas baa ilaahay na siiyey inaan ku kaashano dhib walboo na soo gaara taasaan uga bixi doonaa. imaam abu shaafici wuxuu yidhi dhibka oo lagu sabraahay imtixaankan caadiga lagu sabraahay waa wax aad u adag laakiin waxaa ka sii adag in thawaabtii iyo wanaaggii ay ku dhaafaan maalinta qiyaamo markii dadka la abaal marinayo la imtixaanay oo dhibaatada soo garta markii ilaahay abaal marinayo dadka caafimaadka qaba waxay tamanin doonaan in waagii adduunka joogeen maqaarkooda maqas lagu fiiqi lahay dhibka soo gaar darteed si maanta aakhiradan la joogo thawaab weyn bay u helaan. marka qofkii calaacalayne thawaabka heli maayo imtixaankiina oo ku dhacay. ibnu cabaas markuu ka hadlay wuxuu yidhi qofka imtixaan walbo ku dhaco 3 faa'iido leedahay. waa midda koowaade qofka diintii kamaysan gelin haddii maanta ninka kaa dhinto ama islaanta dhimato ama imtixaan kale ku qabsato ama awlaadii wax kaa gaaraan waxay rabtaa ahaataba oo ay diintaadii kuu badbaado dhib ma qabtid waxaad ilaahay ina umaadaysa xaq u leedahay. nabiga ducooyinkiisa waxaa ka mid ahay walaa tajcal musiibatana fii diinina rabbiyow musiibadeena ha ka yeelin diintayada. in maanta wadada lagugu dhegdhego deen lagugu qabsado ama wax lagugu sameeyahay waxaa ka xun in maalin iimaanka ilaah kaa qaado oo qofka damir ilaah iimaan ka qaado shaqo maxay u tari caafimaad maxay u taraa lacag maxay u tari waxaasna wax u tari isma iimaanka ka qaalisan. إلى حير ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وحال ذوك امتحانيا قاجة يا عبسي يا دلقوا اللي كبا بيا ذوك امتحانيا لكن يا قولستي أو مر الله مركز أنت باريه سان أسوينا دلق إبر نقدان dadka kala laba noqonay qofna waa sabraya ilaahay buu ka ajir malasanaya wax fiican inuu ilaahay u keenay buu sigaya qofna UN iyo United Nations buu cabanaya abaar baa nagu dhacday gaaja nagu dhacday waa baabaanay ehelma noolo hebel cabashadaas ku jiraysa ima qofkii sabr ilaahay muxuu yiri waa bashir saabrin. marka waxaa wada saddexdii ibn Abbas radiyallahu anhu tan labaad wuxuu yiri adduunkan inta ay tahay nimco bay ku tahay maanta haddaad gafgashid oo adduunkan lagaaga jaro waa nimco weyn weeyaan marka loo fiiriyo in inta lagu kaadiyo
oo nimca lisakaasiyo maalinta qiyaam aakhirada lagaaga jaro taas waa laga fiican yahay rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ah adduunka baa lagu imtixaanaa waxa lagu dambi oo kale adduunka lagu imtixaanaa markaas buu maalinta qiyaam ilaahay wuxuu la kulmayaa asoo wixii dambi uu sameeyay dhan la soo imtixaanay imma kana caasiga waa loo kaadinaya tartiibtiisa u soconaya ilaa oo ilaahay la hor istaago subxaanahu wa ta'ala tan saddexaad waxa weeyaan waxaan soo sheegnay adduunka koomayso noqon tan labaadna diinta meesha ka noqon tan saddexaad waxa imtixaanka maanta ku qabsaday ka xun buu noqon karay oo hadda maanta tusaalahan oo kale hal il wax ka gaaraan in lixda lixad dam ka noqoto mideeba daran waxadan lixda lixad in dam ka noqoto markii isha yar wax ka gaar ama meel yar oo sinbaraxatay wax weyn ma taas ba u baahan wax aad uga mahad celis Ilaahay subhanahu wa ta'ala